kulan wacan daawada meel walbo aad joogto waxaad kusoo dhawaataa janaalka Lewaya Films aad ugu barateen warbixinada ugu dambeeyay ee la xiriira arrimaha Bollywoodka. Haddaba warbixintana maanta waxaan ku jeexi doonaa atirishada lagu magacaabo Dia Mirza, waana atirisha si degan ugu dhex muuqata aflaamta Hindiya. Filmada guulaha gaar waxaa ka mid ah Lag Raho Munabai. Digtaan ayaa filmada waxay kusoo biirtay sanada 2003. Haddaba warbixintana waxaan ku jeexaynaa Dia Mirza guuldaradeeda nijabka ay ka qaaday iyo adkeysigeeda. Haddaba maxay ka tiri arrimahaas oo dhan? Sidoo kale waxaan filaa inay jireen dad aad u badan oo aad ugu gudagalaya. Waxaan ogahay inaan si rasmi ah aan u gudagalay markaan fiiriyay isla calaamadaas. Haddaba waxaan filaa inaan xilli aan sidaa ahaa maxaa yeelay cadaadiska ah inaan soo bandhigo gudbiyo cadaadiska guulaha iyo fikradaha dadka ee waxa ay guush u yaqaanaan. Dia Mirza ayaa muddo ay filmada ka maqneed oo aysan wax film ah jirin, xitaa way guursatay Dia Mirza. Haddaba waxay ka hadashay sida ay ku heshay filimka weyn ee Lag Raho Munabai. Inta aanan sameynin Lag Raho Munabai waxaan sameeyay filmo badan, filmadaas oo aan si fiican guulo u gaarin, aadna waan u shaqeynayay, laakiin ma awoodin inaan isa soo saaro. Waxaan isweydiiyay maxaa sameysay, maqalad baa cadaadis ayaa igu siyaaday, dadkana waxyaabo yaab leh ayay iga sheegeen. Taasina waxay ahayd arrin kaloo dhabtii murugo leh, taasoo oo jilayaasheena aan sameyno guuldarooyinka filmada oo lagu daro guuldarada jilaaga. Markii aan jiray da'ada 19 ilaa 20 sano jir, waxaan isweydiiyay meeqa film ayaad ku haysatay jeebkaaga. haddii xitaa aadan u magacaabin 4 ilaa 5 film waxay kaaga dhigneed inaad sameysay. atirshada ayaa dhawaan waxay kala tageen seegeeda, dhinaca kalena waxa ay ka hadashay sida ay qof ahaan aad isku celin kartid guulahana aad ku gaari kartid. waxaa jira sheeyooyin qaar ah aad isku darsato kaana dhigayo mid guulo ku horseeda nafsad ahaanna ku xasiliya, mana fududa, laakiin sheyga wanaagsan ayaa taasi ah. wax ka weyn ma jirto guulaha adkeysiga iyo inaad sameyso wax aad aaminsan tahay, ayay hadalkeeda kusoo xirtay atirshada Dia Mirza. atirshadana ayaa dhawaanadan wax fiican ka soo muuqana saatay waxay u janjartaa dhinaca fashionka iyadoona saameyn xaggaasi ku leh. atirshadan ayaa waxaa lagu waramayaa in dhawaan ay rajeynayso inay dib ugu soo laabato filmada, iyagoona raadinaysa mashruuc ee dib ugu soo kici karto amaba awood lixaad leh mar kale ay ku heli karto. haddaba haddaad ka hesho warbixintan la wadaag asxaabtaada.